waxaannu ka helnaa xawaare awood iyo dulqaad. waa noolo lagu tiirsanaa in ka badan 4,000 oo sanno. waxay gaadiid u ahaayeen boqortooyadii qadiimiga ahayd, waxayna lafdhabar u ahaayeen xadaaraddii curatay qarniyo ka hor. waxaa lagu tiriyaa ama ay ka mid yihiin xayawaannada duurjoogta. farduhu waxay xidhiidh qoto dheer la leeyihiin bini'aadamka, waxaana loo isticmaalaa gaadiid iyo weliba tartanno oo ilaa hadda ay ka qayb galaan. farduhu waxay ku noolaan karaan goobaha cimilada kulul iyo goobaha cimilada qabow, waxayna noolaadaan 25 sanno ilaa 30 sanno. waxaa jira fardo ku nool aagga degmada Awaare. fardahan waa duurjoog ku nool kaymaha ama xidhka aagga Awaare. waxay ka soo jeedaan taariikh ahaan geesigii geeska Afrika, waxayna ka farcameen fardihii ka soo jeeday Nugaal ee daraawiishtii sayidka. taariikh sayidka la xidhaa Nugaal bay ka yimaadeen. sayidkan oo meesha Nugaaleed buu ahaa. fardahan waa Nugaal oo farda haddii aad aragtid qoobabka cadcad iyo wejiga cad imika Harar iyo waxa naga iibsaday oo halka ka iibsaday ilaa Dirdhaba ka iibsatay ilaa Jigjiga. faraska wejiga cad iyo faraska qoobka cad haddii aad aragtid waa fardihii Awaare saas lagu garanaya. ilaa sayidkii fardahani halkan ay caan ku ahaayeen, way joogeen, way jireen. intii hore waxaa la dhaqaalayn jiray oo gacmaha dadka ayay ku jireen, laakiin waqti dambe ayaa fardahu gamcaha ka baxeen. imika wax leelyan male. fardahan waxay ku tarmeen aagga Awaare oo ay ku saanqaadeen, mana ogola in ay beddeshaan neecawda udgoon iyo cimiladii ay ku raad qaadeen. waa farda ay ka go'an tahay in meel kasta oo la geeyo ay u soo xadhkagooyaan, maadaama aynan ka maarmayn daaqa dhulka diihan iyo balliga biyaha macaan ee Awaare. dalka ku dhaqnaayeen ee ayna meel kala qabanaynin waa halka. meel kasta oo la geeyo haddii arda sababa xagga laga mariyo way soo fakanayaan. haddii halkaa iyo loo kaxeeyo bari way soo fakanayaan. meel kasta hadday tagaan oo deegaan raacaan, marka ay biyuhu ka dhammaadaan iyaga oo yaacayo isariyanaya halkan imanayaan. ma aha wax meel kale ku noolaan kara ama joogi kara. waxay noqdeen waa beledkan meelan ahayno qaban karaan ma jiro. anigu hawada iyo waxay tahay garan maayo, laakiin waa meesha ugu caansan ee farduhu ku dhaqmaan. 350 bay gaadheen waqtigii dhergiga. niman tababaran oo fardaha yaqaanay soo kaxaysteen Harar iyo Adsaba iyo meelahaas ka keeneen. halkan ay 70 faras ka kaxaysteen oo ka madheen. 70kii dhagaxbuur bay geeyeen. dhagaxbuur markay geeyeen way carbiyeen ilaa 7 bilood 8 bilood bay haysteen. maalintii ay soo daayeen ay dhahan way idin barteen, cunto iyo biyana ay siinayeen, halkan ay yimaadeen. meel kastoo la geeyo halkan bay yimaadaan. dooxadaa imaka maaragtay halkan ka muuqata ayay aad u jecel yihiin.
farduhu waa duurjoogta ugu hurdada badan waxaynu hormuud u yihiin ama kaalinta koobaad ay kaga jiraan duurjoogta ugu dhiiran ee aan la hawaysan karin in dhaya lagu waxyeeleeyo dhasheeda taasi oo si cad kuugu tilmaamaysa kalsoonida nololeed ee ay leeyihiin farduhu kolkay dhalaan Soomaalidan markay dhalaan hadday dibadda joogaan oo ilmahooda neefku la joogo bahal ma cuni karo way la dagaalamaysaa waxa intaasi dheer in ay leeyihiin nidaam iyo kala dambayn uu midka kale ku xadgudbayn iyadoo la ilaalinayo xeerkii iyo sharcigii ay ku soo barbaareen isla markaana ay ka dhaxleen waalidiintooda farduhu horta haddaad mid qabato oo laylido faraskugu israaca ma kala tago haddaad mid fuusho inta kale way kaa dabageli qaab dhaqanka lagu hoggaamin karaa waxa weeye horta in la qabto oo la layliyo markii la layliyo ee aad gacantaada soo galaan wuxuu baranayaa gacantaadii wuxuu kaaga soo goohayaa bidhaan arag markuu adiga ku arko ee ku barto bidhaan arag buu kaaga soo goohayaa isagoo walba kuu imanaya marka sida lagu qabtaa ama wax lagu tababara ama lagu layliyo ama lagu waxeeyaa waa wax dhib yar dhulka marka hore lagu tababaraa dhulka sidoo kale farduhu waxay safka u horreeya kaga jiraan taariikhdii hirgashay ee daraawiishtii sayidka maadaama ay ahaayeen gaadiidka masaafada dhulku intuu isku jiro soo koobayey una sahlay in halgankii daraawiishtu uu noqdo taariikh aan salguurin fardaha waxaa qiimahoodu ku soo dhaqay oo ku soo noolaan jiray oo ku soo halgamay sayidkii intaan gaadiidka imika casriga imanin gaadiid dalka waxa uu ahaa fardaha oo noolo waxay ahaayeen lagu shaqaysto oo gaadiid ah dhulkana soo koobo oo soo duubay ahaayeen farduhu bilicda adduunkana way ahaayeen oo farduhu bilicda ugu heer sareysa ayay ahaayeen silsiladda saamaynteedu ay noqotay raad aan maskaxda bini'aadamka ka goyn oo marka la soo qaada magaca geesiba markiiba aad xasuusanayso taariikhdii maguurtada ahayd ee uu dhaxlay allah u naxariistee sayid maxamed cabdilla xasan waxaana laga yaabaa dad badani marka ay maqlaan magaca iyo martabadii uu sayid maxamed cabdilla xasan ku leeyahay taariikhda Soomaaliyeed ee baalka dahabka lagu qoray ee sooyaalkii daraawiishta uu hoggaanka u hayay sayid maxamed cabdilla xasan iyo xushmadda ay sayidka u hayeen dhammaanba Soomaalida bari iyo galbeed koonfur iyo waqooyi in ay isweydiiyaan sayid maxamed cabdilla xasan muxuu ku mutaystay xasuustaasi karaamaysan ee aynan cid kale la wadaagin sayidka iyo daraawiishtuba waxay deegaanka ku lahaayeen goobo badan oo saldhigyo adag u noqotay daraawiishtii sayidka
waxaana ka mid ahaa santarka Gurdumi oo ka tirsanaa degmada Awaare. saadaalin iyo sahan badan kadib waxay hoggaankii iyo daraawiishtu soo degeen santarka Gurdumi iyagoo ka soo hayaamay gobolka Doolo. sida ay daraawiishtu ku timid Gurdumi daraawiishtu waxay deganeyd markii hore meesha la yiraahdo Doolo kolkay deganaayeen way ku bulaaleen way bateen dad iyo dunyaba way bateen markaa waxay xamili waxay qaban waayeen inay suuro geli weyday inay Doolo ku noolaan karayaan intooda iyagoo quwadda leh waxay yiraahdeen sahan aan diro meelihii daraawiish la kala geyn lahaa iyo meelihii ay ku noolaan lahayd in la soo helo sahan waxaa loo diray Nogob sahanna waxaa loo diray Nugaal sahanna waxaa loo diray Aagan Awaare iyo Gurdumi baa loo soo diray waxay ku warrameen meel la degi karo waxaanu aragnay laguna dhagaan karo balliga la yiraahdo Gurdumi iyo aagiis kolkaas baa halkaa laga soo guuray geedi baa la soo qabtay meeshana la degay sayidku halkan uu soo degay way ku bulaaleen way ku fiicnaadeen aad iyo aad bay ugu wanaagsanaadeen sidaa kolka ay leeyihiin sahamada la waxaynayo tirada meesha ku noolaan kara daraawiishuna ku bulaali karta waxa weeyaan Gurdumi inuu hagaajiyo halkaas siyaasa loogu soo geeyay qaatay way ku bulaaleen way deganaayeen way ku nabad galeen halkan aynu imika joogno labada geed aragtay isu dhow midna laalays baa lagu xidhi jiray midna waxa lagu xidhi jiray doodi fardaha iyo kolkay saa ahayd balligoo biyo ku jiraan bay yimaadeen kolku arkay inuu balligii biyihiisa yaraanayaan ceel baa halkaa laga qoday ceelkii baa lagu bileeyay maalintii 500 oo faras buu deeqi jiray iyo wixii dadka iyo maaragtay wax lagu karsan lahaa wax lagu cun lahaa animayo wixii uu dad wax ku qabsanayo dhan daraawiishu saasay ku timid wayna ku bulaashay wayna ku fiicnayd sidaas ay daraawiishu meesha waxay ku timid waxaa markiiba daraawiishtii sayidku ay santarka Gurdumi ka dhiseen xarumihii ciidanka iyo hoggaamintu ay degi lahaayeen iyadoo sidoo kalena la sallaxay goobihii lagu laylin lahaa fardaha xawaaraha xooggan u jaray cadowga ku raad jooga sayidka iyo daraawiishtiisa. ilaa 60 waan jiraa laakiin taariikhda halkan waxa aan ka soo gaaray ee ii sheegay aabahay waa muddo dheer 100 iyo wax ku dhintay oo qarnigii sayidka soo gaaray waa sida uu ii sheegayna dhulkan sayidku wuxuu xilli adag buu yimid xilli daraawiishtu macnaha ay in badan doonaysay inay ciidamo saa'ida dhulkan ka qorato oo ay u yimid sayidku halkan saan buu ku yimid sayidku marka ciidamadiisu aagan uu kala deganaa sida uu kala deganaa meeshan aad aragtaa hadda banaanada waxa lagu ciyaarsiin jiray fardaha ayaa lagu tababari jiray tababarada fardaha meesha ciidamada kooraska laga saaro iyo meeshan ahayd xarun weyn oo tababar bay ahayd meesha waxaa weli ka sii muuqda aagga Gurdumi calaamadihii iyo saldhigyadii daraawiishta sayidka dhagaxdan idiin muuqda waxa ku fadhiisan jiray martida sayidka la socota maalmaha munaasibadaha isaguna waxa uu khudbaddiisa ka soo jeedin jiray qalcaddan oo kor uga kacsan dhulka. wuxuu fuuli jiray meesha maaragtay maalmaha xafladaha ay jiraan oo kale ama dabaaldegu uu jiro meelo dhismayaal dhaadheer oo fuulaa jirtay iyaguna halkana goobihii waxaa jirta maaragtay dharka lagu meydhan jiray taariikhiyan intuu deganaa sayidku systemkaas baa halkan ku deganaa. waa farsamo marka aad aragto aad ku cajab gelinaysa sida cilmiyeysan ee loo nidaamiyey saldhigyadan. sayidku waxa uu lahaa sannadkiiba 2 faras ayaa loo xanaanayn jiray waxaana geedkan caanka ee idiin muuqda lagu xidhi jiray 2 faras ee laalays iyo doodimeer oo lagu habi jiray il xoolaad. sannadkiiba sayidku wuxuu qaadan jiray 2 faras oo la dhaqaaleeyay kuwa kalena waa la dhaqaalayn jiray oo meel xero lagu dhaqaaleeyo oo bari lagu bari gooyo aha doodi halkan wuxuu watay doodi laalays subaga la cabsiin jiray iyo barida waa loo bari gooyin jiray
waxaa lagu yidhi faraska la yidhahdo dhoodimaar 31 baridood markii la cabsiyey ee 30kiiba cabbay iyo bishimaha leebsaday baa la yidhi weli ma dhergin uu sii wadaa beer ma lahayn subaga iyo wax qabtay farasku mucjisu ahaa faraskeedii sayidka lagaga hadhay buu ahaa kolku aad maqasheen qalcado ka bootiyey iyo webiyada boolaha hargegan kolku ka bootiyey taas bay ahayd marka waxa weeyaan waa sayidkaasi wuxuu watay faraskaasi watay sanadkan oo halkan joogay dhowrka sano halkan joogay wuxuu watay labada faras labada geed baan loo kala xiri jiray kan hadda aan ku tiirsanahay oo faraskii dhoodi geedka lagu xiri jiray waa kan ee loogu subki jiray qorraxda looma sii deyn jirin saas ay ahayd rag baa u jilaa oo dhaqaalayn jiray maalinta duulaan ama wax la maagan yahay unbaa de la sii deyn jiray isagoo de carbisan oo subkan jirkaagii waxaan ahay laga jaray jeex ka midanaho hooyo waan ku jecelahay runtii lama hayo taariikh ama nidaam kale oo u tixgeliyey hooyada sida ay diinta islaamku u tixgelisay iyadoo u aqoonsatay in ay tahay xubinta ugu mudan in loo samafalo isla markaasina leh xaqa ugu badan ee uuna qof bili'aadmaya gudi karin maxaa yeelay hooyadu waxa ay soo martaa dhibaatooyin badan oo ay kala kulantaa caloolku qaadidda xanuunka dhigitaanka ama foosha iyo barbaarinta ilmo kaste ilaa iyo inta ay ka geeriyoonayso hooyadu agteeda waxaad ka tahay dhallaan xataa haddii aad tahay hoggaamiye idil oo bulsho idil mas-uulu ah rabbi naarta jahannama kaa xore jaxiimo jibso fardowso jannadii ku noolo haddaba carra cali waa hooyadii dhashay libaaxii xaqudirirka ahaa allaha u naxariistee sayid maxamed cabdilla xasan hooyadii halkanay ku aasan tahay sayidka halkan tun yaroo halkan xabaashiisa ku taalla xabaasha qodkala la yidhahdaa oo waa carra cali xabaasheeda loogu magac daray marka ciidamadu taariikh dheer bay ku lahayd reer sayid daraawiishta dhexdeeda ciidanku markuu tusaale ahaan gaardiyey oo kale saasay u qaadan jireen qoryaha laabtay ku qaadan jireen waxaa lagu yidhi wax laabta qoryaha ku qaatay daraawiishta ugu horreysay marka waxay odhan jireen 3 raab inta iska dhigaan garhmadoobaa xagga hore mari jiray ragga dee quwada leh dhexdana waxaa geli jiray dhallinyarada xagga u dambaysa waxaa ahayn odayaasha waaweyn marka waxay odhan jireen carraa nin dhashay bay odhan jireen garhmadoobuhu kolkaasaa dhallinyaradu carraseed baa nin dhashay odayaasha waaweynay gaboobay allaylehe nin dhashay nin dhashay nin dhashay bay odhan jireen saasay ciidamada ku qaadi jireen maaragtay marka carra halkanay ku dhimatay halxidhaalaha ay ku lifaaqan yihiin xujooyinka ad adag ee u baahan tab iyo xeelad lagaga baxo waa mid aad kaga gudbi karto dhiiranaan u baahan karti iyo calool adayg ragannimo taariikhda kaahin baa loo diray carro kolkay la yidhi way bugtaa sayidku kaahin buu u diray wuxuu yidhi kaahinow hooyaday gerideeda ha soo sheegin buuri iyadoo dhimatay ha soo sheegin buuri habeenna ha ii imanin buu yidhi maalinna ha ii imanin adoo lugana ha ii imanin buu yidhi adoo faras fuushanna ha ii imanin intaa midkaa samaysay waad xujooday buu yidhi sayidku kaahin markay geedaha aad aragto ku gabaday horta meeshii buu tegay oo islaantii oo dhimatay oo la-aas ayuu u tegey ninkuu u diray geedahaasu ku gabaday oo kolkii cadceeddu ay godka gashay in yar la soo jeedo yuu ka soo baxay faraskiina lugna wuu saaray lugna dhulku yuu ku qotomiyey waxaa la yidhi sayidow kaahin baa soo baxay kolkaasuu yidhi war ma maalin baa mise waa habeen midna maaha la yidhi sayidow godkii la gashay ya wuxuu yidhi ma faras buu fuushan yahay mise wuu lugaynayaa mana lugaynaya farasna ma saara abi lagu baalayay midna dhulku ku hayaa midna faraska si uu soo socday yidhi waryaa hooyaday miyay dhimatay afkaagu sayida waa ka yeedhay buu yidhi saasii ka xujo baxay ay halkan yani xujooyinka way socdeen weligeed waa qabcadii meelii ugu xujo badnaa beritanka oo kale meesha kolkii la beritamay taariikhda meeshii uu kaahin orodku ku yaraa ninka inuu in badan xujeeyuu damcay wuu orod yaraa kaahin kolkaasuu yidhi maanta aynu orodka ku waxayno marka wuxuu kaahin kolkii meel buu xariiqo laba nin orod badan buu yidhi la beratan kolkaasuu yidhi halkaa xariiqa ka booda booda kolkuu ninkii orodka badnaa xaggaa u booday buu kaahin xaggaa u booday kolkaasuu yidhi war waa maxay ninba dhan u baday buu ya ninba dhan u baday buu
dhirtu waxay leedahay manaafacaad aad u fara badan iyadoo looga faa'iidaysto siyaabooyin kala duwan. waxaa jira geed caana oo aad u adkaysi badan isla markaasina u cimri dheer waana geedka qudhaca. geedka qudhaca waa geedka ugu cimri dheer una adkaysta abaarta raagta iyo roob la'aanta. horta run ahaantii dhirta halkan ka baxda waxay u badan tahay eega aan aragno dhirka adduunka ugu cimriga dheer waa qudhacan oo kale. dhirtan waa qudhac, qudhacdana waa kuwa ugu cimri dheer dhirta la yidhaha 400 oo sano gaadhaan. hadda qarni uu sayidku joogaa, waxaa laga yaabaa inuu 3 qarni oo kale sii joogo geedkan. qolofta geedkan marka uu raaga ama uu weynaado waxay ka dildillaacdaa salka hoose ee jirridda, waxaana loo yaqaannaa jilif. waa qolof waaweyn oo xoolaha iyo maroodiguba way ku xoqdaan, waxayna iskaga reebaan shilinta iyo cayayaannada kale. laamaha qallalan ee qudhaca waxaa guntooda ku nool casharaad tiro badan oo hooy ka dhigta ama ka dhex qadhaabsada. geedka qudhucu waa geed damal hadh weyn oo lagu nasto iyadoo sidoo kalena lagu gooyo garta guud ee danta dadka. dadka reer miyigii waxay ka faa'iidaystaan laamaha qodaxda ee geedkani waxayna ku ootaan xeryaha xoolaha. geedkan qudhaca waxaa laga qoraa ulaha sida bakooradda, gudunta, hangoolka, daabka iyo xaabada oo ay reer miyigu shitaan, xooluhuna way daaqaan. haddaba geedkan weyn ee idiin muuqda waa geedkii hoostiisa uu ku go'aamin jiray sayid maxamed cabdille xasan qorshayaasha. dhagaxanina waa kursigii uu sayidku amarku ku bixin jiray xilligii ay daraawiishtu degganayd aaggaasi. sayidku waxa uu lahaa nidaam dhammaystiran oo aad dhihi karto waxa uu ahaa dawlad dhammaystiran. taariikhiyanna anugu waxaan ku barbaarayba sayid wax la yidhaahdo la yidhaahdo iyo daraawiishu waxbaan moodi jiray kolkaan yaraayanan 10 ka gaadhin inaan wax kaloo jiraaba jirin daraawiish iyo wax lamida mooye dhaxalkaanu ka soo gaadhin iyo halgankiisii. iyadoo sayidku raxmaanku ugu deeqay maskax furan oo ay weheliso abwaannimo iyo indheergaradnimo. sayidka gabayadiisa waxaa rikoodh u ahaa xuseen oo ka mid ahaa daraawiishtii sayidka, kaasi oo marka uu sayidku hal mar tiriyo gabayga aan mar labaad loogu celin jirin, waxaana sida koolkii ugu dhegaysay maskaxda xuseen oo ahaa nin mucjisaa. sayid maxamed nin gabay badan buu ahaa. gabayada waxay ahaayeen ilaa 120 bay ahaayeen jiiftada mooyaane. kolkaas sidaa markay ahaayeen waxaa gabayga ka duubi jiray nin la yidhaahdo xuseen dhiqle oo ahaa sida min mariga ama cajalada oo kale. sayidku gabay uu kol tiriyey kol labaad kumuna noqonin baa la yidhi. marka xuseenow buu odhan jiray kolkuu gabayga uu damacsan yahayoo sida qaalibka taagnidu ku gabiyi jiray baa la yidhi. xuseen dhabarkuu iska soo taagi jiray baa la yidhi. marka gabayga saasuu ku bilaabi jiray. marka sayidku gabay uu kol tiriyey kol labaad kuma noqon jirin baa la yidhi. xuseen buu weydiin jiray oo gabayada ka qaban jiray sayidka. kolka sidaasuu ahaa. waa xuseen dhiqla la odhan jiray. wuxuu yidhi marka gabay baa wuxuu yidhi xuseenow
ikhwaan baynu nahay uur ka soo baxaye alla igama qaado adaan iga ilaaweyne alla igu og oo waan jeclahay aynigaa tahay haddaad umaaddo waan kuu hubaa ina uduu khayre asxaabihii baad u tegi uduga waalaayo irdihii jannada inaad ka geli waan ogsoonahay buu yidhi gabaygaas yar yuu u tiriyey oo duco ahaa marka sidaas markay ahayd ayuu wakti dambe baa wuxuu weydiiyey gabay uu waa tiriyey yuu weydiiyey xuseen buu weydiiyey xuseen halkaa gabay baa ka fakaday baa layidhi gabay la yidhahdo canaan waayeel buu marka u tiriyey xuseenow ninkii laablabaan lumin nin weedhaye maanta ood lixowday iyo adoo layl foo gabana wax badan baan sidii laan quraan looxa kuu dhigay laxankii aan kaa jaray ka badan leg iyo ulaaf inkastoon ku laal baray fahmadu kuuma looshana ee listankii horea kugu jiriya luquf habowgii ee nimankii laqmada ku akhriya waa ku lumiyeene waxay kugu lugooyeen jidkii laaladda ahaayee lakab oodan bay kugu rideen laqamadiinniya maandhow ha leeleelin yay leexan maansadee maandhow lakowlaha ka daa labana ha u hoorin luuqdana ha biin sawdku waa laaxiboon yahayee meeshaadan lowga u dhigayn koruga laameeri waa leefa duusha iyo rasaas leebahoo dhiciya waa laqan madaafiica iyo danaba lifaaqoone waa loolimayntii bad iyo muujo doolulane waa laban daruur curatay oo laaga soo rogayo waa luugad iyo shaadir iyo luulka oo kale adigaa lamaantaya ka eeg laaxinkii ceebta buu yidhi weli waxaa ka sii muuqda aagga gurdume calaamadihii daraawiishtii sayid maxamed cabdille xasan taasi oo muujinaysa daraawiishtii sayidku markii ay degganaayeen aagga gurdume nidaamkii iyo qalcadihii kala duwanaa ee ay ka hirgeliyeen aaggaasi waxaan ka soo gaadhay ceelkan oo biyale oo jiyaalka marka geelu yimaado jeexyadanteeda waaweyn oo inaga hooseeya geela oo dhan geela irmaan oo dhan jiyaalkii laga waraabsado oo intay dhowr boqol halaad ay ka cabto taa waan ka soo gaadhay ta kale waxaan ka soo gaadhay calaamadihii uu lahaa sayidku oo sidoodii ah ood mooddo inay cusub yihiin oo ay ka mid yihiin labadan dhagaxe lagu fadhiisanayey meesha dharka lagu wadhan jiray ama ay ku maydhan jireen meeshay saadka dhigi jireen calaamadihii ay wax ku qabsan jireen oo dhan balse waxa muhiima in la dayactiro goobaha taariikhiga ee deegaanka si loo soo jiito dalxiisayaal badan deegaankuna uu uga helo dakhli badan maadaama uu deegaanku leeyahay goobo badan oo taariikhiya